wixii uu khayre dalkan ka qabtay labadii sano iyo waxa u dhiman iyo waxa uusan qaban intaba waan sheegaya waxaan ka bilaabayaa waxa uu qabtay khayre wuxuu qabtay waxaan la halmaami karinin oo ummadda Soomaaliyeed taariikh baal dahab u ah oo caawa hadduu bariso resolution dhiibo in hore u soo qabtay oo ra'iisul wasaaraha uusan jirin kow number 1 geesi weeye waxa danta iyo waxa ummadda Soomaaliyeed danteeda cid aan uga leexleexan ee fuliya taas waa lambar caalamiya oo guul koob dahab ku qaaday ka weyn lambarka labaad waa in firfircoon oo ay markii xataa shaqeeyo oo guureeya oo dhawaaqa qodobka lixaad waxyaalaha uu qabtay marka oo geesi ay ku yahay waxa kamida marka la soo qabto qodobada shirki ugu dambeeyay oo ka dhacay London oo shidaalka kabanaasha baar la soo yeeray oo la tartansiinay oo ummadda Soomaaliyeed inay ka baxdo baahida loo ay geesinimo ku gaareen asaga madaxweynaha Farmaajo waxaan la halmaami karin oo geesinimo oo baaldaaba ku qoran oo ummadda Soomaaliyeed danteeda weeye hadeeg Soomaalida waxa leedahay ninku wuxuu aqoon asagu ma leh wuxuu aqoon ma lahan shaarkaagan hadaad loo qaweyn lagu dhaqaa kuwa ayadoo ummadda Soomaaliyeed danteedii saas loo wado iyo nolosheedii yaa mucaarada iyo dacaayada banaanada la taagan kuwaas waxaan leenahay waa soo reebta danta Soomaaliya cidna magan loogama ahan niman geesiyaal oo dhalinyaro oo ka leexanin oo aqoon-yahano baa gacanta ku haya waana Farmaajo iyo Khayre ku amaanan yihiin wallahi labada sano oo xilka hayo waxaan dhihi karaa ra'iisul wasaare Khayre wax badan ayuu u qabtay dalka waxyaabo badan ayuu ku soo kordhiyay waxyaabaha uu ku guuleystay oo aan aad ugu taageersanahay waxaan ka mid ah dhalinyaro badan uu ka soo deeyay maxaabiista xabsiyada caalamka ku xiray dalkoodii dib ugu soo laabtay dadkoodii la midoobay waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay asiga iyo madaxweynihiisii muddo 2 sano ah khilaaf la'aan ay wada shaqeeyeen waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee ku guuleystay inuu bil kasta u bixiyo si joogto ah mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay bilaaba in la dagaalamo musuqmaasuqa waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay muujiya isla xisaabtan heer wasiir ilaa heer gudoomiye haddii aan ka hadlo waxqabadka Prime Minister Xasan Cali Khayre aad baan u bogaadinayaa 2 sano guurada u buuxsantay maanta u buuxsantay waxqabadkiisana waxqabad haatan media laga soo koobi kara ma ahan oo waxqabad aad u ballaaran ayuu ku tilaabsaday dawladdu waxna waa qabatay waxna wali uma qabsoomin waxyaalaha qabatay waxa kamid ah sida maxaabiistii Shiishalis Hindiya ku dhibaataysnaa waxay dib u soo celisay xorriyadoodii waxayna ku soo wareejisay waddankoodii Soomaaliyeed ayagoo nabad qaba waxay dib u soo celisay ictiraafkii Soomaaliya caalamka ay ka haysatay iyo wixii laga aaminsanaa oo xukuumadii ka horeeyay laga aaminsanaa ayadoo uu soo laabtay magacii iyo karaamadii dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo jumhuuriyadda Soomaaliyeed oo aad u soo noolaaday waxaan aad u bogaadinaynaa Prime Minister Xasan Cali Khayre iyo President Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalka meel horumar la gaarsiiyay ilaahina waxaan uga baryaynaa 2 sano oo hartay waxa magaranaysa aan wali u qabsoomin inuu magaranaysa si hagar la'aan ay ugu qabsoomaan waana dad daacada oo ku midoobay inay dalkooda wax u qabtaan maanta waxay ku aadan tahay maalinta la magacaabay ra'iisul wasaaraheena Xasan Cali Khayre runtii waxaan oran karaa waa ra'iisul wasaarihii ugu taageeraha badnaa Soomaaliya waa ra'iisul wasaarihii waqtiga kooban oo meesha joogay waxa ka soo dhalaalay waa ra'iisul wasaaraha kaliya oo si muran la'aan ah iyo si khilaaf la'aan ah ay ku dhameystay waqtigiisa 2 sano kala bar waxa way intay tahay xukuumaddu waxaan rabaa inaan waxa way halkan ummadda Soomaaliyeed guud ahaantooda meel kasta joogaan farxadda aan la qaybsado waxaana waxa way ra'iisul wasaaraha uga baryayaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta u dhiman oo xilkiisa u fududeeyo sidii 2 sano hore oo u dhamaatay waxa way ugu fududeeyay ugu dhameeyay waxyaalaha qabtay iyo wax ka badan aan ka rajayn doono insha Allah inuu qaban doono wallahi waxyaalo badan baan dareeminaa oo uu qabtay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kow waxa kamid ah qarnimada Soomaaliya oo hadda muuqato iyo iftiin ka muuqato wadanka iyo isbedel ugu faani karo maanta
oo ah caqabadaha jira oo horey u jiray oo la xalliyey oo waddankeenu ahaa waddan shisheeye ku adeegto labada sano ee xasan cali khayre ugu dhammaatay xilligii kala gidisnaa ee uu soo hayay maamulka wasiirka koowaad ee dalka wuxuu ahaa xilli wanaagsan oo 2 sano oo ka wanaagsan aanay imaanin xilliyadii xukuumadii kala gidisnaa ee dalkan soo maray maxaa yeelay waxyaabo aanay ku dhaqaaqin xukuumadihii hore ayaa khayre uu fursad u helay inuu ku dhaqaaqo isaga iyo daacadnimadiisa sababta ugu horraysa waa xuquuqda dadkan ay leeyihiin shaqaalaha rayadka ah ciidamada qalabka sida dib u habaynta iyo dib u qaabaynta maamul goboleedyada dalka ka jira xukuumadda khayre waxaan dhihi karnaa 2 sano fowsaa ka dhacday waanu mahad celinayna xasan cali khayre 2 sano ee dambe yuusan dib isugu dhigine sidii tan uu u dadaalay ha u dadaalaan leenahay